وصحبه وسلم وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوتي في العقيدة waxaan isku dayeynaa galabta inaynu xoogaa isaga tilmaamno intii Allah inaga garadsiiyo subxaanahu wa tacaala mowduuc ku saabsan khuluqul muslim ama akhlaaqda dhaqanka qofka muslimka ayuu leeyahay. akhlaaqdu ma jeceli inaan erayga af carabi ahaan iyo istilaaxaadkiisa wax badan idinku mashquuliyo, laakiin waxaan isku dayayaa bal mucda mowduuca inaan ka warramo. akhlaaqda marka la tilmaamo iyo qofka muslimka ah dhaqankiisa gaar loo sii tilmaamo waa shay runtii u baahan in badan dadka muslimiinta eegaan, weliba faciina dadka ah. waxaan u tilmaamayaa faciina waxa weeyaan ummadaha jiritaankoodu wuxuu ku xidhan yahay say isu dhaxal siiyaan waxay rumaysnaayeen iyo waxay ku dhaqmi jireen. waxaanad moodaa casrigan dambe in bulshooyinka dhaqamadoodii ay aada isu bedelayaan oo wadanadii xooga batay ama dadkii xadaaradoodu ay qaalibka noqotay dhaqamadoodii ay noqdeen kuwa faashiga ama faafa ama kuwa xoogan ee dadku inta badan uu soo dhaweeyo ama daahiro noqday mujtamacaadka ka dhex muuqda. qofka bini aadamkaana suluugiisu ama dhaqankiisu waa dadnimadiisiiba. qofka dadnimadiisu maaha intuu joogiisu iyo dherarkiisu leegiyey ama inta quruxdiisu leegtay ama xataa thaqaafadiisu iyo garaadkiisu intuu leegyahay, waayo waxaasoo dhammi wax badan ma macneeyaan haddii qofka dhaqankiisu uu liito. qofka waxa tarjumo saxiixa ka bixiya qaabka uu u dhaqmayo maca allahi subxaanahu wa tacaala maca khalqi, sida uu la dhaqmayo ayaa waxay ka bixisaa qofka tarjumo dhaba. insaankana inta badan dhaqanka ka soo fula waxa uu si dhaba ugu xidhan yahay waxa uu rumaysan yahay iyo maskaxdiisa waxa ku guntan. waxa maskaxdiisa ku guntan ayuu in badan ka soo fula. ilaahay waa ka quraanka ku tilmaamaya walbaladu tayyibu yakhruju nabatuhu biidni rabbih والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. إلهي وحليه سبحانه وتعالى dhulka fiican sida fiican alle subxaanaه wa tacaala uu abuuray markuu roobka iyo dee uu helo naxariista alle subxaanaه wa tacaala waxaa ka soo baxa baa ilaahay yidhi nabaadkii. dhulku laakiin marka horeba hadduu meel diriya iska ahaa ama meel tamuuxa iska ahaa ama meel fiican haddaanu ahayn qaad unbaa ka soo baxa baa la yidhi, wax naf leh kama soo baxaan. idan waxaa la yidhaahdaa akhlaaqdu waxay ku salaysantah qofku wuxuu rumaysan yahay. sidaa ogeed baa la yidhahdaa dadka muslixiinta ah, dadka raba inay wax islaaxiyaan, waxa ugu fiicane ay ka bilaabaan waa inay noqotaa dadku waxay rumaysan yihiin. maa fi nufuus hadday islaaxdo nafta gudaheeda waxa ku jira afcaashan ka soo baxaysa iyo dhaqankiisan dabadeedna wuu hagaagaya. inta nafta waxa ku jirta ay xun tahayna lagama filayo in wax fiican ay ka soo baxaan. akhlaaqdu waxaan odhan karaa marka xadaaradaha ama laga warramayo waxaan lagu tilmaamo ilbaxnimada bini aadamka waxay ka mid tahay baa la yidhahaa miqyaaska lagu qiyaaso nolosha dadkaasi intay horu martay iyo intay dib u dhacday. mujtamacu markay akhlaaqdiisu fasaado bay yidhaahdaan waa astaan ama se digniin sheegaysa inay ummadaasi jabayso, xataa kuwa gaalada ah. xadaaraadka caalamka marka dib u taariikhiyan loo raaca baa la yidhaahdaa ummad kastaa markay jabaysay waa markay xadiidka ku noolayd xagga akhlaaqda, markay aad meel hoose u gaadhay ayay sii jabaysay. walidaalika buu shaacirkii carbeed wuxuu lahaa waidaa usiiba alqawmu fii akhlaaqihim faaqim calayhim ma'taman wacawiila. yani idaa usiiba alqawm haddii duul buu lahaa akhlaaqdooda beledu yani xaggaa hadday mushkiladu kaga dhacdo faaqim calayhim ma'taman wacawiila. in ay tahay shaygani shayga ugu weyn waxa inoo tilmaamaya ammaanta ugu weynee nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay qur-aan ku tilmaamay waxaa ka mid ah wainaka lacalaa khuluqin cadiim. ilaahay nebigiisii markuu ammaanaya calayhi salaatu wasalaam
ammaantu ku ammaanay waxa weeyaan wa innaka la ala khuluqin cadiim akhlaaq iyo sajiye iyo diin iyo dhaqan fiican inuu ku sugan yahay baa alla subxaanahu wa tacaala nabi maxamed ku ammaanay walidalik bay caaisha ridwaanullahi calayha waatii sheegaysayba haddaad rabtaan akhlaaqda nebiga kaana khuluquhu lqur'aan bay lahayd nebigaba calayhi salaatu wasalaam waxaa akhlaaq u ahaa qur'aanka bal waxaynu arki karnaa akhlaaqda toosinteedu inay tahay xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam siduu ciladaba uga dhigay risaaladaba waxa lagu cileeyey in loo soo dejiyey un bitaqwiim alakhlaaq walidalik buu xadiidkii bukhaari adab ilmufradka ku warinaya xaakim iyo bayhaqina ay warinayaan suyuutina u taxsiininaya wuxuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam inamaa bucithtu liutamima makaarima alakhlaaq nebiguba wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam inamaa bucithtu waxa lay soo bixiyeyba waxaan rasuul u ahay ee bulshada laygu soo dirayba waa akhlaaqda keeda fiican inaan dhammaystiro buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam akhlaaqda keeda fiican inaan dhammaystiro bale xadiidka tirmidhi xasanun saxiixa waa ka nebigu ku tilmaamaya mu'miniintuba xataa iimaankoodu siduu u kala xoog badan yahay inuu yahay siday u kala akhlaaq fiican yihin akmalu lmu'miniina iimaana yani haddaynu nidhi bulshooyinka noloshoodu fiicnidooda iyo xumaheedu halkay joogto miqyaas waxaa ka mida wax lagu qiyaaso akhlaaqda waxaan leenahay xataa iimaanka dadka ku jira maqaayista lagu qiyaaso waxaa ka mid ah akhlaaqda kasoo fushaa inta ay leegtay si awgeed buu nebigu wuxuu leeyahay akmalu lmu'miniina iimaanan dadka mu'miniinta ah waxaa iimaankiisu ugu dhammaystiran yahay ama waxaa iimaankiisu ugu xoog badan yahay axsanuhum khuluqa buu nebigu yidhi kooda ugu dhaqanka fiican leh iimaan weyniduba waxay ku salaysan tahay maxay dhaqan fiicni bale nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaamu muslim warinayo waxa uu ku sharxay wanaagaba waxa la yidhahaa albir waa kelima jaamica kulansata waxa wanaagga loo yaqaano dhan waxa uu nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam wanaagba waxa la yidhahdaa albiru xusnu lkhuluq birigu buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa fiicnida akhlaaqda akhlaaqdu intay fiican tahay ayuunbuu fiican yahay waxaan leenahay marka akhlaaqdu waa shay qiimo aada u badan ku leh miisaanka islaamiga waa shay qiimo aada badan ku leh bulshooyinka iyo mujtamacaadku qaabkay u noolyihin iyo qaab dhaqankooda waa shay qiimo aada u badan ku leh fardiga iyo dadnimadiisa qofka bini aadamka iyo dadnimadiisa behaviorkiisa ama suluugiisa ama moralskiisa waxay ku tilmaamaan qofka bini aadamkii waa afcaashi ka soo fulaysaa nooca ay u egtay idan insaanku wuxuu qiimo leeyahay inta uu xambaarsan yahay akhlaaq nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu axaadiistaba ku tilmaamaya iimaanka ducfigiisa ama liidashadiisa iyo iimaanka weynidiisa waxa lagu kala eegaa inay tahay akhlaaqda fiican oo dhaqanka xumi wuxuu daliil u yahay ku tusiya ducfu liimaan ama se cadamu wujuudihi iimaanka liidashadiisa ama se yaraantiisa ayuu ku tusinaya sidaa ogeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu munaafaqa ka warramayay munaafaqa waxa la yidhi calaamaduu leeyahy aayat lmunaafiqi halaath nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam munaafaqa 3 calaamaa lagu gartaa munaafaqa qalbigiisa lama arkayo ilaahay unbaa og subxaanahu wa tacaala waxa ku jira laakiin afcaashiisa laga qiimayn karaa sidaa ogeed buu nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam munaafaqaba aayadda lagu gartaa waa 3 إذا حدث كذب هدو ورما باليري وبيناله بين بوشيغا حديث كيسو نيكا كان وركيسو شكديسو بين كما مدنا وإذا وعد أخلف هدو بلن قاضو أما وحيبه إلى وحسان يليه أما وحاس هينو أهاتو وحي بلن نوو بريا أبو نبي عليه الصلاة والسلام وإذا تؤمن خان هدي لا آمنه نوحبو خيامية صدح خصلة ما صدح شيء وصفات كالليتا أبو نبي تلمام صفات كالليتا وحا كما ينقفكم بان شيء بانت
horta beenaalu waa fulay marka koowaad waayo waa qof aan xaqiiqada waajihi karin beenaalu waa qof raba xaqiiqadu siday tahay inaanu waajihin inuu si waaqaca khilaafsan u sheego idan waxa ila calaamada koowaad ee beenaala lagu yaqaan waxa weeyaan waa qof fulay aan xaqiiqada waajihi karin xaqiiqada sideeda uma sheegi karo qofkuna kuma haboona fulanimadu waa waaqaco uu ka ban sheegayo nabigu calayhi salaatu wasalaam iimaankii markaa wuxuu calaamad uga nifaaqi waxa calaamad looga dhigay inuu beenaalay bal quraanka ilaahay muxuu ku tilmaamaya inma yaftari alkadhib alladina la yu'minun billahi inma yaftari alkadhib beenta wuxuu baa abuuraba la yiri kuwa aan iimaanka lahayn idan qofku inuu been sheega waxay doontaa ka qadhaadaato qofka muslimka waxa lagu yaqaan inuu run sheego inuu xaqaa'iqda sidooda u tilmaamo taasa dadnimadiisu ay ku jirtaa qofnimadiisu ay ku jirtaa raganimadiisu ay ku jirtaa shajaacadiisu iyo geesinimadu ay ku jirtaa yani dadka ducafada waxa lagu yaqaanaa inay isku dayaan xaqiiqada inay ka baxsadaan hatta in badan kuwan qaad iyo khamro iyo waxa kani waxay jecel yihiin inay nolosha bay isdhaafiyaan yani xaqaa'iqda noloshu diiday qofkan inuu waajaho saasi daraadeed wuxuu doonayaa mahrab meel uu cararo ولذلك سخردان iyo waxan la sameeyo dhan inta ugu badan la qaar waxa ku kalifta inaanu xaqiiqada waajihina awgeed nabigu khasalada labaad uu ku sheegay waxa weeyaan waa qof aan ballan lahayn wixii tagay baan ka sheegay waxa soo socday uu ballan qaado ama mustaqbalka sidoo arkayaana iyana waa la nooc haduu ballan qaado baa la yiri waxa xiga waxa weeyaan inuu khilaafo shayga saddexaad ee nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaamna waxa weeyaan inaanu ahayn qof wax lagu aamini karo mas'uuliyad qof qaadi kara amaanadu waa shay aad u weyn inuu qofku qaado mas'uuliyad ah wixii loo dhiibay waxay doontaa sir ha noqoto hanti ha noqoto maamul ha noqoto wuxuu doonaba ha noqdo shayga lagu aaminay shay macnaawiyana uu noqon karaa shay maadiyana uu noqon karaa waa qof aan xambaari karin ama sidi karin ama ilaalin karin amaanada loo dhiibay intuu doonaba hal eekaaday oo khiyaanadu waa wax liita qishka iyo tuugada iyo waxan oo dhimo nooc min al-khiyaano khiyaanadu waa wax aad u liita wana min calaamati saacaba nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri yani wuxuu tilmaamaya saacadu markay iman doonto waxyaabo caan ka noqon doona waxa kamid ah in la yiraahdo reer banu fulaan yani qof aamina mujtamac muslim ma yahayn hebel uun la tilmaamo qof aamina mujtamac dhan laga dhex tilmaamo laakiin waxa mujtamac muslimkii asliyan inuu amaanada ku sifoobo bal xadiidka kale saxiix muslim ku yaal waa kii nabigu ku tilmaamayay afar qofka isugu wada timaada buu nabigu yiri kaas waa munaafiq dhaba bi afar ay kugu wada xaadirto oo afartaas sifada ku wada sifowdo waa munaafiq khaalis buu yiri qofka qayb kamid ay ku sifowdana nifaaq amali qayb kamid ay ku sifowday nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay dhowr kan shay aynu tilmaamnay qaar kamid ah idha hadatha kadab wa idha aahada ghadar wa idha wa'ada akhlaf wa idha khasama fajar nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam warka inuu beenta ka sheego ballankana inuu buriyo haduu ahdi galana inuu ahdiga khiyaamo ka sameeyo haduu murmana yaan laga badin sidoo leeyahay inuu fujuurka u dhaco muranku waa khaslaan wanaagsanay ba marka hore bal nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay qofka muranka iskaga taga walow xaqna ha ahaade in bayt jannada uu helayo yani muranku ma fiicna muranku waa qof raba un dadka inuu jabiyo way markaad murmayso hebel iyo ka roonana jabiyo un batilada ka xog bado waa xubbil buruz waa qof raba inuu dadka ka kor noqdo islaamkuna waxa uu amaana waa tawaaduc iyo isdul dhigayo qofku inuu bulshadiisa kamid ahaado inaanu faanfaan iyo isla weynii ku jirin murankana asliyanba waxaad moodaa waa qof jecel inuu khasmigiisa ama cadawgiisa markasta inuu jabiyo xaq iyo baadil ma inaan laga gaar helin inaad soo taagnaato nabigu wuxuu yiri qofka markuu murmayo fujuurka gaadha kaasina baa la yiri isaguna waa khasla min khisal nifaq qayb kamida waxaan marka dhaqanka diintu baa ay sheegaysaa ee dadnimadu sheegaysaa yani fadaa'isha akhlaaqdu wa fadaa'il al-a'mal
waa inta ugu badan leh wax bini aadamku qaybteeda ugu badan leh isku wada waafaqsan yahay waxaynu oran karnaa waa waxyaabii diinta ugu soo hordegay bay kamid yani ahkaamta sharciga inta badan Madiinay ku soo degtay laakiin masaa'ilka aqadiga ah iyo masaa'ilka akhlaaqda ku saabsan inta ugu badan leh quraanka makiga ba ka warrama yani usul ila akhlaaq inta ugu badan leh waxa ka warrama maxay quraanka makiga ah waayo dadnimo la foom garinayay qof baa la sameeyay qofkuna aqeedo qalbiga degta iyo dhaqanka soo fula weeyaan waxaad ka garan kartaa sida uu nabigu kaleey salaatu wasalaam u ilaalinayay hatta saxaabadu dhaqanka ay ku dhaqmayaan islaam ba maalin inaan yaro ay dhashay u yeedhay markaasay tiri kaalay hooyo timiraan ku siiyay nabigu wuxuu ku yidhi kaleey salaatu wasalaam timir ma siinaysa haabay tiri wuxuu yidhi haddaana timirta siin lahayn beenaalad baa lagu qori lahaa hadda ma aha war kaloo laga warramayo iyo sheeko kale waa ilmo in lagu sasabaanay haboonayn beentu cidnaba uma cuntanto qof yarna looma sheego qof yarna waligaa been ha u sheegi ka weynna ha u sheegi hadduu yar iyo hadduu weyn iyo qof walba waxaad isku daydaa inaad run kula dhaqanto si awgeed buu nabigu wuxuu ku yidhi islaantii haddaad intuu kuu yimaadaanad waxba siin lahayn aad ku qabsan lahayd oo kale beenaalad baa lagu qori lahaa waxa ka sii muuqaal badan oo aynu sii tilmaami karnaa masaa'ilkanu nabigu tilmaamay kaleey salaatu wasalaam xadiidka saxiix muslimka ku yaala Xudayfa ibn al-Yaman markii iyo aabihii markay soo hijroodeen ayaa Xudayfa mar dambe wuxuu ka warramayay wixii ka reebay inuu Badar ka qayb galo Xudayfa dagaalkii Badar ka muu qayb galin isagii aabihii toona aabihiina dagaalkii Uhud ba markay muslimiintu istildilaysaa lagu dilay yani markii dadku saddex gal la qaldamay iyadoo gaal la moodayaaba la dilay Xudayfa wuxuu leeyahay aniga iyo aabahay ayaa soo hijroonay dhexda markay marayeen bay Quraysh qabatay oo Badar yara dagaalkii u soo socda waxay ku yiraahdeen waryaadeen Muhammad baa doonaysan waxaanu rabnaa bay dhahayn Madiina hayaa ku socotaana Madiina aanu ku soconaa bay dhahdeen waska tawriyeysteen dabeetana waxay yiraahdeen ballan ma naga qaadaysaan hadaa Muhammad u tagtaan iyo Madiina marka tagtaan inaydan la soo jihaad gali doono la soo dagaal gali doonin ballan bay ka qaadeen ballanka ayaa la gelayaa gaalo xagee ku socota nabi Muhammad ku duulaysa kaleey salaatu wasalaam maxaa lagu la gelayaa marka magaaladii tagtaan inaydan noo soo raacin nabi Muhammad saas ma ballanka ma nala gelaysaan aanu disiideynay sidii bay aqbaleen ballankii bay la galeen Xudayfa iyo abihi dabeetana Madiina qabteen nabiga kaleey salaatu wasalaam bay la kulmeen nabiga warkii bay u sheegeen waxay dhahay ilaahay rasuulkiisa iyo dhexda markay kula kulmeen sidaas aanu soo baxan markaanu halka mareynayna nimanka mushrikiinta aan qabtay ballan lagu soo daayay ballankaasi wuxuu sheegayaa inaanan dagaalka maanta nimanka Quraysheed nimanka gaalad kugu soo wadan inaanan kula gelin nabigu wuxuu ku yiri kaleey salaatu wasalaam insarifa iskataga buu ku yiri nafi lahum bi'ahdihim wa nasta'inu Allah alayhim bu nabigu ku yiri iyagana ballankoodan u oofinaya allana waan u kaalmaysanaya waxba ila dagaal gelin iska taga buu ku yiri nabigu kaleey salaatu wasalaam ballanka la oofinaya yaa loo oofinaya waa gaal waana maxay nabi Maxamed ha u gargaari ballana nabi Maxamed ha u gargaari bimujarrad inaad soo gasheen ballankaas nafi lahum ahdahum bu nabigu ku yiri kaleey salaatu wasalaam ballankoodii baan u oofinaya ونستعين الله عليه ولذلك با إمام النووي وحليه حديث كان وحكم مغضب فيه الوفاء بالعهد وحكلاش يا إمام النووي مركز علماء waxay isku khilaafsan buuda asiirka maxbuuska la soo qabsaday muslimka ee gaaladu ay qabatay ee gaalada haduu heshiis kula galo idinka baxsan maayo hada waa maxbuus waana la qabtay waxa qabtay cadow gacantiiba ku dhacay cadowgii gaaleeda gacanta ku hayay buu ayay yiraahdeen aad meelaha iska joogjoogtida ballan qaadan aad baxsanaynin inaad naga baxsanaynin haduu ballan qaado buu yiraahdaa la yaharuba minhum
فقال الشافعي وأبو حنيفة والكوفيون لا يلزمه ذلك بل متى أمكنه الهرب هرب. إمام الشافعي يا أبو حنيفة يا كوفيون توحيد هذا warkaasi ballanba ma aha waa nin la haysto una asiir wixii haday u suurta gasho iska tagaya. ama imaam Malik rahmatullahi alayhi, imaam Malik wuxuu leeyahay yalzamu wa mar haduu isagu marka hore inuu diidabay hayd buu leeyahay imaam Malik, haduu aqbalayba ballanka markii hore laazim bay ku noqonaysaa inaanu baxsanin buu leeyahay u joogo, dii kale marka ugu horeysa ballanka waa inaanu gelin. waxaad garan kartaa xadka ay gaarsiisan tahay ballan in la qaado oo la oofiyo meesha ay ka taagan tahay. waxaan leenahay marka qofka muslimka akhlaaqdiisu akhlaaq nafciya maaha, yani akhlaaq ku salaysan markaad wax ku helaysana samee, marka aad waxba ku helayna dhaafa maaha. caalamka waxa laga yaabaa akhlaaqdu inay nafci tahay, مثلا akhlaaq iqtisaadiya baa jira bay yiraahdaan oo qofka marka la train gareynayo wax la barayo waxa loo baraa مثلا shirkad baad ka shaqeynaysaa, meel baad ka shaqeynaysaa, waxa lagu barayaa customer serviceska, qofka aad u shaqeynayso saad ula shaqeynayso maxay ku salaysantahay inaad u jajabnaato. waxay dhahaa customer is always right, ninka aad wax ka iibinayso ama wax ka gadanaya markasta isaga saxsan, haduu isagu xanaaqo adigu xanaaqi maysid, haduu waayo lacagta jeebkiisa ku jirta rabtaa inaad qaadato. idan akhlaaqda uu ku siinayo مثلا ninka shirkadda leh ama mashruuc ale ama project kale waxa weeyaan in lagu yiraahdo customer services waa customer is always right, ninka shaqaalaha ninka lacagta haysta isagu wax gadanaya markasta isaga xaq leh, adigu hadaad shaqaaleytay kama cadhaysiin kartid ma maagi kartaa waa ka. ama marka halka laga baxo waxa doontaad sameyn kartaa, yani waa akhlaaq nafci ku salaysan. qofkan jeebkiisa inaad baarataan oo waxa ku jira saa uga soo reebtaan ayay ku salaysantahay, laakiin mabda kale oo insaaniyo ay ku salaysantahay ma jirto. islaamku xataa cilaaqaadka duwaliga akhlaaq buu ku salaysan yahay, ma ha fardiga qura, xataa cilaaqaadka duwaliga waxaad ka garan kartaa ghazwat Hudaybiya, sulhu Hudaybiya maxaa dhacay. muslimiintu iyo gaaladii heshiis bay wada galeen. Suhayl ibn Amr saxaabigii la oran jiray markaa mushrikiinta kamid ah nabigu waa ku heshiiska wada qortay. heshiiska waxa kamid ahaa in qofka muslimka ee ka yimaada xagga gaalada ee soo baxsada in la celiyo, heshiisku ku jiray. heshiiskii oo la wadwado qoraalkiisii ayaa waxa soo galay Abu Jandal, wiil uu dhalay odaygan qoraya heshiiska nabiga la qoranaya, wiil uu dhalay oo maxbuus ahay intuu silsilada ku xidhay meel ugu xidhnayo la torture gareyn jiray ayaa intii ay dagaalka iyo xaggan ku soo maqnaayeen gurigii iyo meeshii ka soo baxsaday. dabeetana wuxuu yiri maanta ma muslimku ugu dhow yahay halka nabiga iyo saxaabadii ay joogaan inaad ka gaadhi. wuxuu soo galay markaa iyadoo heshiiska la wada galay ayuu soo galay. waxay noqotay markaa ninka kan inuu la kulmo goob muslimiintiina xagga joogaan gaaladina xagga joogaan, laakiin heshiis la qorayo, heshiiskana qodobadiisa ay kamid tahay in wixii muslimka ka soo baxsaday dib loo celinayo. odaygii Suhayl ibn Amr saxaabigii la oran jiray oo markaasi mushrika oo ninka Quraysh qoraya heshiiska dhankooda duqa wax uga qoraya ayaa wuxuu yiri kanina waa waxa ugu horeeya heshiiska kamid aan kugu eegayo Maxamedow, kan wiilkan hadda soo baxsaday waa kowka heshiiska kamid ah. muslimiintii waxay aqbaleen in la celiyo, waayo heshiis bay galeen sheegaya qadiyadatan. maadaama ay heshiis galeen heshiisku waynu siisa u fulaa. idan akhlaaqda islaamiga ma laha in la yiraahdo war mala maslaxadu xagay inoogu jirtaa iyo xaggan baa muslimka u faa'iido badan kan baa u faa'iido ma aha. akhlaaqdu waa akhlaaq sadaradeed hadaad fardi la dhaqayso, hadaad mujtamac la dhaqmayso, haday dawlad dhaqmayso, hadii xarbi lagu jiro, islaamku akhlaaq buu leeyahay. dad dagaalansantahay wax kasto gaala samayso ma lama ogola, dumar in la dilo, caruur in la dilo, kan in la dilo waa lama ogola. waxaan leenahay marka akhlaaqda islaamiga waxa ay sheegaysaa qofka muslimka ah waa shakhsiya laga rabo inuu dhaqankan si dhab ah u yeesho. iimaankuna waxa uu sheegayaaba, iimaanku qofka qalbigiisa markuu dago waxa uu sheegayaa inuu mu'minku noqdo kariim, qof gacantiisu ay furantay oo deeq badan oo jawaad ah oo dulqaad badan oo jaarka ku fiican oo waajibaadka ilaaliya. yani waxaan oo dhan waxay sheegaysaa dhaqan. akhlaaqiyadku badna waa
طبعي bay yidhaahdeen ama sijiye rasmi oo qofku uu leeyahay waxyaabaha qaarkoodna waxay u baahan yihiin iktisaab inuu qofku kasbado maalan wax waloo nolosha ka mid ah wax la bartaana waa jiraan wax loo dhashaana waa jiraan qofku maalan dulqaadka uu dhalan karaa marka hore dadku uu kala dul badan yahay laakiin haddana waa wax la barto oo la baran karo in naftaada aad controli karto ilaalin kartid waan cadhoodo dhiishiyo dherigaba waan jabiyey maaha wax ka soconaya qofku inuu aqbalo isagoo cadhaysan haddana inuu nafta ilaalin karo walidaalika nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xoogga maxaa u taqaaniin dee waa ninkaan dhinaciisa dhulka la dhigin bay yidhaahdeen ninka xoogga badan le waa kee baa la yidhi waxay dee iyagu u arkayeen fasirkooda wuxuu ah ninka xoogga badan le waa ninka rag markay isgalaan aan dhinaciisa dhulka la dhigin laysa shadiidu bisurca buu nabigu yidhi ka xoogga badan le ma aha ninka marka raggu isgalaan aan dhulka la dhigin kaa maaha ee waa buu nabigu ku tilmaamay alladii yamlik nafsahu cinda alghadab yani xadiidka maa macnaa wuxuu nabigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam waa ka naftiisa hanan kara markuu cadhoodo ninka xoog badan leh waa iyadoo naftiisa iyo acsaabtiisa iyo dhammi ay kacsan tahay ninka haddana dejin kara ee controli kara ee waan cadhooday aan wuxuu doono ku samayn karaynin waxaan leenahay markaa waxbaa la iktisaabi karaa laakiin qofku inuu akhlaaqda noocana iktisaaba waxay u baahan tahay isku day tiro badan leh iyo tijaabo tiro badan leh qof waliba markuu kelida yahay waxaad leedahay malaa cidi kaama dulqaad badna cidi kaama caynkana laakiin waxaad is ogaanaysaa marka lagu gugujeeyo ama lagaa gardaraado ama markaa xaalkaagu siduu noqdo markaasaad qiyaasi kartaa haddii aad meel weligaaba layska kaa ixtiraami jiray aad joogto oo uun waa hebel la odhan jiro lagu wada ixtiraami jiro cidi weligaa muuqan mayso dulqaadkaagu intuu leegi laakiin haddaad soo dhex martay un bulsho inuun isjiijiidanaysa ama mashkilad markaasaad is ogaanaysaa naftaadu inta ay tamarteedu leegtay akhlaaqda keeda xun iyo keeda fiicnina waxay la mid tahay qofka bini aadamkii sida uu kala deganaanshiyo badan yahay ama dabcigiisa ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuray waxay la mid tahay uskaga marada kaaga dhaca mid waxaa laga yaabaa markiiba markaad maydho inay maraduba caddaan noqoto nadiif midna waxaa laga yaabaa inaanu 2-3 goor marka la maydho inuu ka bao mid waxaa laga yaabaa inuu maradaba la gaboobo baryaro beri kaaga dhacday inay marada la gabowdo laakiin inay sii khafiifto una sii khafiifto una sii khafiifto una sii khafiifto waa saasoo kale bay dhahay nafta bini aadamka haddaad mujaahadatu nafsi samayso oo aad isku daydo nafta inaad kibir jabiso oo aad tawaaduca barto oo aad barto inay islaamnimadeeda tabaqdo oo aad kibirka iyo fakriga iyo isla weynida iyo waxa kanoo dhan ka ilaaliso waa laga yaabaa naftaadu inaanay aad u adkayn laakiin si aad ugu wado xad baad gaadhsiin kartaa ay noqon karto wax loo dul qaadan karo waxa ka soo hadha waxaan leenahay marka iimaanku astaamihiisa rasmiga ahi waxa weeyaan waa dhaqan akhlaaq baa astaan rasmiya waa ولذلك مثلا النبي وحده المامي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصمت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن ضيره من كان يؤمن بالله امس با حديث ركتن عين ka sheegaya oo nabigu leeyahay alayhi salaatu wasalaam qofka ilaahay iyo maalinta qiyaamada rumaysan yani qofka iimaan qalbigiisu degan yahay iyo jaarkiisa dhibi qofka qalbigiisu iimaan u degan yahay ha karaameeyo dayfkiisa iyo martidiisa iyo cidda u timaada qofka qalbigiisa iimaan u degan yahay carabkiisa afxumada iyo waxa kan ha ka ilaaliyo bal waxa arki kartaan isagoo ilaahay quraanka kule maxay ya ayyuha alladheena aamanu la yaskhar qawmun min qawm asa an yakunu khayran minhum wala nisaa'un min nisaa' asa an yakunna khayran minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa al-ismu al-fusuq ba'da al-iman ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم آيات كاسترة بدل سورة الحجرات لما أنت يتبع أخلاق بيسيده والصورة بيدهدنا الأدب كورنته الأدب مع الله مع الرسول مع المؤمنين إلهي وحينات المام يكوى إيمانك لغاها ليو بدكين بدك كليو حقيري وحلقا يابا كوانا حقيري سانا ما كوشيس جيسي سان بين يدك خير بدين مجتمع أخلاقيات كمجتمع عدم يوبا هي وحكم ده
inuu dareemo cadaaladda iyo sinaanta iyo midnimadiisa inaanu mujtamacu noqonin qaarna qaar la kor yeelo sabab kasta ha lagu kor yeelo waa nin maal qabeenoo inta maal kale halkaa la fadhiisiya waa madaxo meel gaaray fadhiisataa waa culamo ama waa dad waa in gaara uun si gaara loo weynweyneeyo loo buunbuuniyo dadka kalena la liido islaamku waxa weeyaan inaan qofna la xaqirin muslima qof muslima inaan la xaqirin waxa uu alla tilmaamaya subxaanahu wa tacaala warna fihiina ha ceebaynina baa layidhi walaa talmizu anfusakum muslimiintii o dhan naf qudha laga soo qaaday naftiina ha ceebaynina warnaanays ha isugu yeedhina baa layidhi dhaqamada ugu xunxun ee soomaaliyeed ay gaarka ku tahay yaanan caalamka intaan meel maraya arag dad kula nooca naanaysta ka mid ah mujtamacaadka kale waxyaabaha ugu badan qofka bini aadamka khaatirkiisa way dhowraan xataa kuwa gaalada ah qofku meesha uu u liito inta badan magac ugama dhigaan soomaalida waxa ugu badan qofka la eegaya halka aad ugu yara nuqsaanta leedun baaba magacaaga ah cawarow langadhow luglow feedow madaxayow gacmayow waxaanay sheegayaan waa lagu eegayaa meesha lays yidhaahdaba qofkan halkaas buu iin ka leeyay inta lagu baadho halka in uun aad ku leedahay baa lagaaga dhigayaaba shakhsiyadaadaba inay halkaasi matasho dabeetana iyadii baa magac kuu noqonaysa waa yacni nooc liidnimada ka mid ah inaad qof bini aadama intaad baadho halka aad tidhaahdo wuugu liitaa unaad astaantiisa ka dhigtaba lagu garto ilaahayna wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala walaa tanaabazuu bilalqaab bi'sa lismu lfusuuqu bacda aliimaan warnaanaysahayo waxaana isugu yeedhina baa la leeyahy subxaana wa tacaala faasiqnimo iimaan dabadeed yani kanbaa u xun ilahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala ha isxamanina mujtamaca haddaad ogtahay cirdigaagu inuu nabadgelayo aan cidi ku xamanaynin qof fakuur oo wasni mujtamaca kule baad noqonaysa laakiin haddaad ogtahay markaad dhaqaaqdaba inay wax kaa sheegi doonaan waa waxyaabaha ugu badan ee mujtamacaadka waxyeela waxaa ilaahay tilmaamayaa malaha dhaafa iyo qofka tuhumaadkan tirada badan leh ha isjaajuusinin oo ha isbaadhbaadhina waxaasoo dhan waxaa laynooga reebayaa in la helo qof muslima oo toosan qof muslima oo quman bale waxaa laynoo tilmaamaya xataa warkaa haddii lagu soo gaadhsiiyo qof mu'mine lagaa gaadhsiiyo inaad mawqif fiican iska taagto lowlaa id samictumuuh danna almu'minuuna waalmu'minaatu bianfusihim khayra waqaaluu hada ifkum mubiin ayaa ilaahay tilmaamayay subxaana wa tacaala waxaan leenahay min muqtada aliimaan waxaa ka mid ah inuu qofku naxariisto waa akhlaaq islaamka looga baahanya qofka muslima inuu barto waxaynu odhan karnaa akhlaaqdu islaamiga ahi waxay kaga soocantahay waxa kale way ka guda ballaadhantahy waa cilaaqadu qofku alla la leeyahay subxaana wa tacaala ikhlaas bay ku salaysantao nooc min alakhlaaqa sir alle iyo addoonkiisa udhaxeeya ah cilaaqadu qofku naftiisa la leeyahy iyo walaalihiisa kale iyo basharka kale cilaaqadu la leeyahy bale akhlaaqda islaamiga waxay gaadhsiisantahy qofku xidhiidhka uu la leeyahay xataa dhirta iyo maxay iyo xayawaanka u fiirso nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayay haweeney baa naar gashay buu nebigu yidhi haweeney ayaa naar ku gashay bisad xadiidkii bukhaari waayo akhlaaq xumay kula dhaqantay bisada way xidhatay may sii daynin buu nebigu yidhi xashiishkeeda ha soo cuntee waxna may siinin waxa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiista bukhaari maalan ku tilmaamaya haweeney baqiya oo gabadh xuna ayaa ilaahay dembigeeda wuxuu ku dhaafay ey haraadan ay waraabisay eygu waa shay liitaa laakiin bimujarad inay u naxariisatay oo ay haraadan intay la kulantay ay u naxariisatay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala dembigeeda ku dhaafay qofka muslimkaa uma banaana xataa dhirtan iyo waxaan inuu iska googooyo waayo ilaahay baa wuxuu leeyahy wallahu laa yuxibu alfasaad laa tactaw fi lardi mufsidiin walaa tactaw fi lard ifsaadka dhammaantii ma banaana bale waa kii nebigu nahiyey calayhi salaatu wasalaam xayawaanka maalan in qardi laga dhigto wax lagu dhugtamo inaad ka dhigataa la nahiyey akhlaaqdu waa qaabuu qofka mu'minkii u dhaqmo bale wuxuu nebigu tilmaamay xataa haddaa wax gowracaysaan in qaab akhlaaqi ku jirto loo gowraco haddaa wax dilaysaan qaab akhlaaqi ku jirto in loo dilo waa gowraco naftii
naftaba waad ka jaraysaa waxa kanaad gowracayso laakiin adoo nafta ka jaraya waxa lagu yiri usluub la dhaqan maxay mididaada ayuu arkin baa lagu yiri midida soo soofayso iyadoo afle la kaalay marqura si fiican u mari kullu dalik waa naxariisaadu naxariisanaysa maxay neefkan inuu si fiican u samaysmo waxlana akhlaaqdu qofkuba waxaan qofka la yiraahdaa iyo waxa bulshada la yiraahdaa muwaaziniinta ugu waaweyn ee la saari karo ee lagu tilmaami karaa waa akhlaaq sida ogeed baa waxaan leenahay hatta ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka markuu inooga warramayo cibaadaadka ugu waaweyn ee islaamka la ina faray waxyaabaha quraanku inoo tilmaamayo waxa kamid ah cibaadaadka badanta laga leeyahay hadafka dunawiga ka aakhiraha dambeeyo ahdaafta dunawiga cibaadada laga leeyahay inay kamid tahay akhlaaqda inay fiicnaysiiso مثلا صلاه وعبادتك ugu waaweyn qofka muslimka saaran waana cibaadada uu nabigu ku tilmaamay aakhiro markuu soo taagana waa shayga ugu horeeya ee acmaasha Allah ku saabsan ee lagu xisaabiyo haddana ilaahay markuu tilmaamay waxa la yiraahdaa waqimis salaah inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar min ghaaya salaada loo oogayo waxa kamid ah inay reebayso maxay qofka inay ka reebto الفحشاء والمنكر إن حبك الريبيس ولذلك إن ذنوب تمايريس إن قف كدقان كيسي هجاجينيس سيدا أوجد أي النبي عليه الصلاة والسلام حينات الماما مثلا زكاة أيال الشيء زكاة واحد ليدي كقات خذ من أموالهم صدقة تطهرهم باليدي وتزكيهم تزكية النفوس أي سمين سبال لي وهو محي أركان تأجوا وين أخلاق حمد قيب كم يدا يطهرتها شحية بخلية كواسي وأخلاق حمد وحيابه جوا وين بكمدي إنه قفك الشحيح النقضة وإذا هو كيجي ونسق على هذا ما ينبشر كونه وح ودي بقى ما وحسية إنه ديده وأخلاق أهل ليدته ولذلك أي النبي عليه الصلاة والسلام وكتل المام يعني بخلق وحيابه لجوها لك سما بينه كمدي إلينا وحكتل المام يأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ولا وحين لنا صونكي أيو النبي عليه الصلاة والسلام حكوت المامية دان صونكي إنه إذن كعلين إن قول الزور يا والعمل به يحمها صدان هدان يذكر ريبينين إن أنا لهي باهي وقابين بدع الندي نينس كديسان يعني الصون قضايات كوجوا وين اللي سوميو أعماش آخرية وحي كثر تمرك لقي ما ده إن يتوقفك أدون كين أخلاق دي سكو في عناته oo barto bisha tan inay tahay bil training uu qofku galo uu baranayo naftiisa sidoo hanan lahaa u ilaalin lahaa uu control kari lahaa halanay waxa la inooga baahan yahay ummadda hadaynu rabno inay jirto waa inaan isku daynaa ummadda dhaqankeeda inaynu wax ka bedelo keeda weyn iyo keeda yar sida ay wada dhaqmaan ardayga iyo macalinku sida ay wada dhaqmaan كماملك الدولة هي هي شعبك سيدي وضع نغميان كذا عقاشية سلاطين تايا مجتمع عادي سيدي وضع نغم كريان قف كستو مسلمة هي سيدة وضع نغم لهي هدي حرير كاسي وهجاجه everything else وح كستو كلا ضبا أنت وهجاجية وهي مجتمعه هدو نقضة مجتمع وحي قالوا ده homogeneous كتلما يعني هو مجتمع دانو وده شيء ده هدو نقضة وقيمك وهايسته نقلك وهايسته qaabku u fakarayay mid tahay midnimadu waa waxa ugu weyn ee umamku ay hore ugu socdaan akhlaaqiyadku waxay u baahan yihiin dadka muslimiinta inay soo nooleeyaan waxaan oran karnaa islaamnimaduba waagi hore waxa ay ku faaftay ee waliba dunida ay ugu faaftay si ay ku tilmaamaan qolada taariikhda qoraya waxay yiraahdeen the explosion of Islam bay yiraahdaan al-infijar qaraxi islaamka bay yiraahdaan يعني تاريخ تمرك اللي يجي وحلا يجا بشركوا إمسود فافي كره دولة دي وقت انت لك بيكون قاعدتها إن عالم دنك تلسا ما يدوني ده سنوات بغلال سنوات بيدي سوقاتان مسلمين تونا وحوقا جي والنبي مدينة شوقي يو دولة الإسلامية قاعد سي انتي كو رئيسي مكان لشوقي أفراد المسلمين تالا دي سي مكان أفراد بالا دي سي كوحي يروادو تريا مدينة waxa lagu kaweemay dawladii islaamiga ahay kadibna waxa bilaabmay futuuxaadkii islaamiga ahaa sanadkii 12aad hijriyada waxay bilaabeen muslimiintu inay labadii dawladood dunida ugu waaweynaa weerar la galaan
sanadkii 14aad iyo 15aad ee hijriyadana labadii dawladood ee dunida ugu waaweynaa intoodii ugu weynayd bay jabiyeen walana waxay ka qabsadeen maxay Sham iyo Masar iyo intan oo dhan Persiana waxay jabiyeenba ilaa ay caasimadoodii bay galeen madaa'ina waxay noqdeen quwwa caalamiya laakiin waxa leenahay intay xoog ku faafeen waxa ka badnayd markastaba inta ay akhlaaq iyo dhaqan ku faafeen caalamka muslimiintii qabsatay oo dhan waxa la yiraahdaa ahaan waa waxaan 10 milyan gaadhaynin kala isku wada daro buqacdaba wixii ku noolaa haddana caalam dhan bay qabsadeen caalamka bad idiloo kamida waxay ku furteen dhaqan iyo akhlaaq maanta dawladda muslimiinta ugu tirada badan leh xuduudan yaray juqraafiga ee gaaladu samaysatay dawlad ku jirta oo muslima Indonesia ugu badan tirada ugu badan waa Indonesia jihaad iyo dagaaltoona lama tagin waxa tagay niman tujaara baa la yiraahdaa dhaqankii nimankan laga arkay ayaa lagu islaamay wadanada inta leeg diin waxa gaarsiiyay dhaqankii dadka kan ay lahaayeen waxaan leenahay labadii dawladood ee waaweyn ee dunida waxay ku jabiyeen ee koowaad wuxuu ahaa akhlaaq markay la macaamilayaan marka ay la dagaalamayaan qaab walba dhaqan bay kala haayeen akhlaaqiyad toosan oo quman ay kala haayeen ilaa ay xad bay gaadhay marka umamka waa la jabin karaa xagga xoogga laakiin ma fududa umadu waxay rumaysantahay qaabkii u fakaraysa inaad jabisaa yani dal intaad ku duusho xoog inaad ku qabsato waa suurtagal laakiin dal intaad tagto oo furato in dadkuba isbedelo oo afkiisa iyo diintiisiiba uu ilaaba wax fudud maaha muslimiintu waxay sameeyeen caalamul islaami dunidan intay qabteen ayay dhaqankoodii iyo akhlaaqdoodii waxay dadka kala bartay in dadku ka tago diimihii iyo afafkii ay haysteenba oo loo guuro dholal badan maanta af carabi laga hadlo af carabi lagu hadli jiray luqad ka gedisan baa la lahaa oo caalamul islaamiga kamida ama dad badan maanta carab sheegta de carab ma ahayn asliyan laakiin waxa bedelay waxaan oo dhamay wuxuu ahaa dhaqan islaamiga iyo qaabka ay ula tageen dadkan muslimiintii oo waxaan leenahay xad bay gaadheen iyaga laga doorbido dawladihii ay rideen iyo wixii ay ka tageen oo dhan waxaynu u baahanay marka haddii aynu rabno inaynu islaam soo celino iyo haddaynu rabno mujtamac muslima oo kooban xataa inaynu samayno iyo haddaynu rabno qof muslima oo fiican inaynu noqono qura qof bini aadam oo shakhsiyad muctabar leh ah noqon kara waa inuu qofku ku xisaabtamo afcaasha ka soo fulaysaa noocayti waa inuu qofku tijaabiyaa qof kastoo muslimi waa kastoo u bariya in iimaan u kordho akhlaaqina u kordho dhaqan inuu ku kordho waxay yiraahdaan culimada nafsiga kuwan yiraahdo dadka bay yiraahdaan in badan oo kamid ah acmaashiisa aqligu ma xukumo bay yiraahdeen bulshada wuxuu ka arko taqliid baa iska xukuma dhaqamo badan bay dadku sameeyaan waanu ka fikirin war waxan ma sax ma qalad baa soo dadnimadaada ku yiri laakiin dadkoo sameynayeen buu arko iska sameeyay dadkoo qayilayeen buu arko iska qayilay dadku sigaar cabayeen buu arko iska cabay muu eegin ba war sigaarku horta maxaa laga helaa kuwan cabaya maxay ku qabaan balada waxay aad qofku aqliga markuu isticmaalayo inuu ka fikiro kuwan maxay ku qabaan waxa kan laakiin bimujarrad dadkaas sameynayeen inuu sameeyo waxa leenahay waxaynu u baahanay ee ugu weyn ee waliba mujtamacana aynu ku noolay maanta uu u baahan yahay waxa weeyaan in revolution thawra inay dhacdo akhlaaqdi way dhimatay tii rag iyo dumarka u dhaxaysay way baabaaday tii waalidka iyo ilmihiisa u dhaxaysay way baabaaday tii macalinka iyo ardayga u dhaxaysay way baabaaday kii dawladda xafiiska fadhiya mujtamaca u imanaya u dhaxaysay way baabaaday kii tabiibka iyo maridkiisa u dhaxeeyay way baabaaday yani maqaayistii waxay isu bedeshay maqaayistii reer galbeedka iyo maadada ku xisaabtamay waxan maxay iga soo galayeen baa qofku leeyahay haduu isleeyahay lacag baa ka soo galaysana wadaya hadii kalena uu ka tagaya laakiin asalku wuxuu ahaa qofka muslimka ahi inuu u fakaro qaabku u fakari la qofka muslimka waxaan rabaa inaan hadalkayda ku badin laakiin kelmado qaadan kartaan inaan idin dhaxdo daynu rabno inaynu bulshada wax ka bedelo waxaynu u baahanay koow inaynu nafaheena wax ka bedelo in Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim mu'taqadkiyo waxaynu rumaysanay inaynu saxno kadibna suluuga iyo dhaqankaynu haysanay inaynu saxno dadku dhaqan buu ku islaami karaa dhaqan ayaa qofka diinta soo gelin kara qura oo lagu la dhaqmo
taariikhda islaamigana waa masaa'ilka ugu mashhuursan ee ugu caansan dad ay deeq ku soo geliyeen diin dad ay si fiican ay ula dhaqmeen dulqaad iyo xilmi ay ula yimaadeen akhlaaq iyo dhaqan fiican ay kula dhaqmeen taas baa qofka keenta in uu soo dhawaado waxaan filayaa dadku way hor fadhiya waxa u badantiin dhalinyaro da'yar waan odhan karo waa da'da revolutioniska samaysa isbedelada mujtamaca waa da'da samaysa da'da weyni inta badan way fakartaa waana laga yaabaa manaahijta ama qaabka loo fakarayo mujtamaca inay wax ka bedasho laakiin xoogga dhabta ee bulshooyinku ay leeyihiin waa da'da yar xataa ambiyada dadka ugu badan ee u gargaaray waa shabaab marka dib ugu noqotay taariikhda dib u daraasayso shabaabku waa xoogga qura ee wax bedeli kara laakiin hadduu shabaabka laftiisu mufsid uu yahay ama akhlaaqdiisu ay liidato isna waxba ma bedelayo shabaabku inta ugu badan le mustaqbalkay ka fakaraan iskuulka waa gashaan dabeetana waxaa laga fakaraa jaamacaadka marka la gelayo waxaa lagu qiimeeyaa uun marketka suuqa soo kuma egtaan yani jaamacadda maxaa chemistry nin chemistrynimo u doonaya miyuu jiraa ama physicsnimo u baro ama engineernimo u baro waxba ku fali maysid waayo aakhirana ilaahay looguma dhawaado dunidana qofka waxma dheeraysiiyo laakiin maxaad raadinaysa waxa ugu badan ay dadku raadiyaan waa lacag dad suuqa soo egto oo tidhaahdo accountingka aada u fiican accounting baad berri arkaysaa dadkao dhan oo wada baranaya haddii suuqa lasoo yaro maroo la arko iyadoo computer science uu xoogaa ka jiro berrito waxaad arkaysaa iyadoo booming uu yahay suuqa computerku da'da yari markaa inta badan mustaqbalkay aad uga fikirtaa hadhan laa mustaqbalka ka fikiraysaan ha noqdo dadnimadiina inaad qof muslima oo toosan noqoto kaas baa waxa ugu fiican in laga fikiro waa inuu qofku u fikiraa hantida ugu badan ee qofku haystaa waa dadnimadiisa hantidu lacagta maaha lacagta waxba ma kordhiso badan waxa ugu badan ay kordhisaa waa calool bay dhergisaa mara la huwadana way keentaa intaasay keentaa waxba kale ma keento laakiin waxa rasmiga ee qofka matala shakhsiyadiisa rasmiga ah waa dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa waxay qofka inay warwar ku hayso markaa xaafadan haddaan dego waa xaafad dhalinteedu ay akhlaaq xunto akhlaaqda kaaga xumaanaysa iskuulka inaad uga bedelato daraaddeed in ardadiisu ay qaar liita yihiin iskuulka inaad u tagto daraaddeed inay dad fiicani joogaan waayo waxaad ilaalinaysaa hantidaadii ma guuraanka ahayd saaxiibkaaga inaad eegto hadduu habaarqaba sigaar cabaya ama qaad cunaya ama mushkilad kale haddaanad islahayn waad ka jari karaysaa inaad iskaga tagto waayo hantidaadii ma guuraanka ahayd buu khatar ku yahay yacni harwada aad u baahantahay inaad ilaalisaa waa harwada ah dhaqankaaga iyo akhlaaqda iyo iimaankaaga inay kuu noqdaan hantida ugu weyna aad isleedahay ilaali ee salaynaysa degaankaagu halkuu noqonayo ee aad ku salaynayso dadka aad raacayso ee aad ku salaynayso bulshada qaabka aad ula dhaqmayso waa hanti runtii aada u qaaliya laakiin qalla ay yartay dadka inta ka fikirta hantidaas siduu u ilaashan lahaa iyo siduu u dhowri lahaa iyo siduu mujtamaca kale ugu gudbin lahaa kelmadeyda waxaan kusoo koobaya marka islaamnimadu yay af inaga noqonin yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun kabura maqtan cinda allahi an taquluu maa laa tafcaluun ilahay baa wuxuu le ya ayuha aladiina aamanuu lima taquuluun maa laa tafcaluun war maxaa u odhanaysaa waxaydan samaynayn laa ilaaha ila allahu markaad tidhaahdo dee wixii ay lahaydna waa lagaa rabaa laa ilaha ila allah muxamadun rasuulu llah waxay lahaydna waa lagaa rabaa kelmadaydu waxay ku koobantahay marka bulshada maanta joogta waxaa laga yaabaa dad badani had iyo goor isbedelka inay ka egaan madaxweynihii ma tegey madaxweyne cusub ma la keenay baarlamaanka iyaa iska bedelay kuwaas in badan wax ma bedelaan bulshada waxaa bedele xooggan soo socdaa sida uu u fakero iyo siduu nolosha u arkayo iyo siduu wax u qiimaynayo xooggaasi hadduu nolosha aragti ka leeyahayna wuu bedeli karaa haddaan uu dee aragtidu ka leeyahay ay tahay wax cunna gaalada lafteeda waxay dhahaa maxay ha u noolaanin bay dhahaa inaad wax cunto ee wax u cun inaad noolaato bay dhahdaan yani ha u noolaanin inaad wax cunto noloshaadu hadday noqoto in xoolasaad u heshaayo xoog iyo wax la cuno marka noloshaadii cunnaa kule adiga cunnaata laakiin u noolow bay yidhaahdaan wax u cun inaad noolaato mujarad cunnadu ha kuu noqoto waxaad nolosha ku kaalmaysanayso laakiin noloshaada qiimaheedii yay noqonin waxaan idinkula dardaarmaya waxa weeyaan inaynu dabaqno islaamnimada aynu wada rumaysanay
لا إله إلا الله محمد رسول الله إنه وضر ربيسنهي إنه نسفي عنه طبقنا ونلشينا كنت طبقنا وقرنا عد ولي بحق ينقول هذا هي أخلاق ذا اللي ينقب هي الأدب مع الله مع رسوله صلوات الله وسلامه عليه هي مع الناس أجمعين وحين كل رقم لهين إنه نقرأنه مركز بي صورة قلتها هي إنه نلشنا وحكب بدلنا ثورة نصبين كرنا ثورة نبقى بين مجتمع كسبين كرنا هذه دقة كينا سيسبدله وإما أنت مقالة هذا يسوق لنا أفر يريرون فرد حيرا صاد ما واحد ركز عن نص يريرون كلا كده يدور فرد حيرته صحيح كمان أما دي تي هذا اللي داوضه من كواتن لليه هي أن عاجي رابع الدنيا دور بسقط من الإيرية كبدي الدنيا ده يشجعان وأشس ملها وواحد بني آدم كله مشغوليه وحل عليه وحي يعني إنما قرر قلبه وحوين أي شباب كود يدت كود كوه يانكم مشغوليان ولا وشيء وحلا إذا سبورتسكو أنت بدن لو ما قصديه وحلا جاي بين التلاذة وميانا هين شركة ولا دسيوا شركة سي بدن ما الله دسي كره لكن كان هو ملها يسوي ومال دتك لغوا عليه إيه بيده هذا الموسيق شنما هي موسيق هي أنت تن لا بدك واحد بنا ودرج ديلرز درج عبان أنت وقو بدن فنان كستو دوني دقو عنسن وكو خبيتسن ku kasto ku bada maqasha Maradona waa maqlisan deynay raayeen Japan baa loo diiday darogada cabay daraadeed Japan oo dhan baa fiisay u diiday ala kulli xaal isku dar wa malhaaga mid kamid oo ku dhex jira haday maanta shabaabku arkaan oo labada dhafoor ba xidhan aroorta Maxamed magaalada ku arki doorta dadkoo dhafoorada xiran waan isweydiinin warkan xirtay muxuu yahay maxaa se loo xirtay aan cid isweydiinin waxa hadaa intiina akhlaaq fiicnaataan tabaneeya casho kadib waxaan agahay in hargeysa wax badan iska bedeli doonaan hadaa intiina isku daydaan inaad dhaqan ka muujisaan waa ninkii xumaha waday wuxuu isku dayay inuu xumihiisa xagga sare soo saaro oo isku dayo inuu misaal umada u noqdo dadku ay ku dayan karaan ama dhafoor la xiray ha noqoto ama surwaal yaro lawga korkiisa laga goynay ha noqoto ama wixii la doonayaba ha noqotee wuxuu isku dayayaa inuu misaal u noqdo najm inuu noqdo umada ay ku dayato waay dadka fiican ay u noqon kari waayeen inay dadku waxay ku daydaan soo saaraan كلمة waxay ku koobmaysaa waa risaala xambaarsantiin risaaladuna waa taa nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam inma bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq idinkaana u shabaab iyo dhalinyaro xoog ba isku day risaalada ina gudbisaan wallahu a'lam billahi tawfiq